gabadha maanta reer galbeedka iyo reer Yurub iyo Mareykan ee baradeeda banaanka uga soo baxday waxba kamay dheefin if iyo aakhiraba way ku seegtay haddii goobihii waxbarashada la isku milmo oo inakiyo inata la iskara fadhiisiyo haddii goobihii maamulka iyo xukuumadda iyo siyaasadda la isku milmo oo gaariga iyo xafiiska la wada fadhiyo inay ragga iyo dumarku isku milmaan oon la kala marin gaar ahaan daayarta inamada iyo dumarka kuwooda daayarta ah haweenku guryahooda inay ku nagaadaan waxaa laga dhaadhiciyay in badan oo haweenka muslimaadka ah kamida guriga jooga inay macnaheedu tahay jeel iyo xabsi meelaha ay ka soo weerareen gaaladu muslimiinta waxa kamida qaraaru nisaa'i fi buyutihin haweenku guryahooda inay ku nagaadaan waxaa laga dhaadhiciyay in badan oo haweenka muslimaadka ah kamida guriga jooga inay macnaheedu tahay jeel iyo xabsi taasina waxa si toos ah loogaga hor imanaya hadalka Allahu yiri haweenka isagoo amraya waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula haweenada muslimada daruurada iyo danteeda waa u bixi kartaa laakiin asal haweenka waxa waa al-qararu fi al-buyut sharaftoodi iyo quruxdoodi iyo qiimahoodu halkaas uu yaala gabadha maanta reer galbeedka iyo reer Yurub iyo Mareykan ee baradeeda banaanka uga soo baxday waxba kamay dheefin if iyo aakhiraba way ku seegtay wax wanaagana kumay gaadhin in lagu cibro qaato kuwa wax lagu qaatana waa munaasab laakiin waxa ayaan daraa haweenka muslimaadka qaarkood inay haddana waxa weeyaan dariiqa ay gaaladuba hore ugu jabeen inay iyaguna ka daba galaan meelaha ay ka soo weerareen gaaladu ummadda islaamka waxa kamida التركيز على الاختلاط بين الشباب والشابات inay ku dadaalayaan ama culayska ay saarayaan inay ragga iyo dumarku isku milmaan oon la kala marin gaar ahaan daayarta inamada iyo dumarka kuwooda daayarta ah waayo waxay garanayaan haddii goobihii waxbarashada la isku milmo oo inakiyo inata la iskara fadhiisiyo haddii goobihii maamulka iyo xukuumadda iyo siyaasadda la isku milmo oo gaariga iyo xafiiska la wada fadhiyo dhinaca iyo dheega la isku hayo haddii goobihii ganacsiga iyo tijaarada iyo caafimaadka iyo dhakhaatiirta la isku milmo oo kii meel fadhiyaba ka soo horeysa inan yar ay tahay waxay og yihiin oo ay garanayaan isku milanka rag iyo dumarka ee waxa weeyaan ajnabiga kala ah ee gayaankana isku ah meher xalaaliina aanu isku hayn arinta dhibaatada ka dhalan karta ayay garanayaan marka la isku milmee la isku soo dhawaado إمام أبو داود سننتي سوحك صاري كذلك إمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي أسيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وهو خارج من المسجد وحو مغلي سحابي قاسي رسولك صلى الله عليه وسلم إساقه مساجد كينتو كسو بحي واختلط الرجال بالنساء في الطريق رقي الضمر كينا وضدي أي إصلح قلين أيا وحو مغلي رسولك هوينكي كله استأخرنا ديبوغا جوغسدا رغا فانه ليس لكن ان تحققنا الطريق واي حق مليهدين طريق برتنكيسا ان مرتان او اسكو سو قادان عليكن بحافات الطرق واحد لازم تان طريق الذي سيكون ياشا عرفيدا اللازمه وبرتنكيسا سو مرينا وعوري فكانت المراه تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به وعوري انت كدب waayo haweenkii saxaabadu kuwa hoggaansan oo dhagan nugul bay ahaayeen oo waxay maqlaan ee dhagahooda ku soo dhaca markaaba ku dhaqma marka wuxuu yiri haweenaydu waxay ahayd marka wixii ka dambeeyay mid gidaarka isku dhajisa ilaa marada gidaarku waxa weeyaan maradeedu gidaarka ay ku dhagto gidaarku uu ka qabsado siday dheega iyo dhinaca isugu dhajinaysa xagga gidaarka walaalayaal waxaan ku soo koobayaa kelmadayda waa mowduuc ballaaran oo kelmad iyo laba iyo saddex toona aan laga gayoon karin ama aan laga gungaari karin laakiin saan horeba u soo tilmaamay waa un tilmaan walabibu takfihi al-ishara inaynu si guud u sawirano horta cadaawada gaala ay noo qabto inaanay hadhi noo jiideyn meelaha ay inaga beegsanayaanna wax kamida aynu isdareensiino si arrintaasi inoogu xambaarto inaynu digtoonaano oo gaalada wasaa'ilka kala duwan ay u adeegsanayaan haleynteena iyo halaagida ummadda islaamka inaynu inakuna ka taxadaro oo madax iyo mijaba culimo iyo cuqaal iyo waxgaradba in gacmaha la isku qabsado arinta ka hortageeda waxana hubaala maanta weerarka lagu hayo diinta iyo dhaqanku inuu xadhkaha goostay
oo dhagaha iyo indhaha midna aan la isaga duweyn oo meelihii halbowlaha ahaayee mujtamaca muslimiintu ay ugu nuglaayeen laga soo weeraray haddaan arrintaa laga horteginna in waxa weeyaan ayna dhaxalsiin doonto cawaaqib xumo hadhow aan laga soo kaban karayn marka kelmadaydu waxay ku ekayduun ishaaro iyo baraarujin وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم